kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaado ah 12 Juulaay 2022 idaacada duhurnimo waxay idin socodsiinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaana waxay kala yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Eritrea oo Asmara ku kala saxiixday heshiis isafgarad ah ciyaaryahanka Mo Farah oo sheegay in Ingiriiska lagu keenay qaab sharci darro ah isagoo yar loona bixiyay magacaankiisa ahayn wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Boosaaso kadib iska horimaadkii shalay ka dhacay garoonka magaaladaasi ganacsatada mootobajaajta ee Muqdishona waxaa laga mamnuucay inay shaqaystaan wixii ka dambeeya 12 habeenimo hadaba bajaajleyda qaar sidee u arkaan arrintan aniga bajaaj laanahay markii aragteen aan ka hadlana waxaa jirta siyaabo badan oo amniga lagu sugi karo 6 saac oo mootooyinka la istaatiya u malayn maayo inuu amni ku sugmaayo mootooyinka taargetkooda waxa weyn bulshada u adeega haddii kuwa dhac geysta ay ku jiraanna qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadan duhurnimo oo ay soo saareen Fartuun Ismaaciil iyo Maxamed Shiil Xasan waxaan se ku bilaabaynaa marka hore warkii caalamka iyo Faarax Lamaane وهاجاج وما هتصنتهاي كوثر baaritaan ay BBC-du samaysay ayaa lagu ogaaday cadeymo la xiriira in ciidanka sida gaarka u tababaran ee Britain ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SAS ay dileen dad u xirnaa iyo dad rayid ah dalka Afghanistan waxaa la ogaaday in hal unug oo ka tirsan ciidankaas ay dileen 54 qof siyaabo shaki uu ku gadaaman yahay iyada oo saraakiisha sarena ay ku guuldareysteen inay militariga booliska u soo gudbiyaan dilkaas la sheegay wasaaradda difaaca waxa ay sheegtay in gunaanadkaas aan qiil loo samayn eedeymahaasna hore baaritaan loogu soo sameeyey wasiirkii difaaca ee Sri Lanka Basil Rajapaksa ayay saraakiisha hay-adda socdaalka ka hor istaageen in uu dalka ka dhoofo dad banaanbaxayay ayaa ku eedeeyey isaga iyo walaalkii Gotabaya Rajapaksa inay horseedeen in dhaqaalaha dalka uu burburo madaxweynaha ayaa la filayaa inuu toddobaadkan isxasilo Dr. Harini Amarasuriya waa xubin baarlamaanka ka tirsan kana soo jeeda xisbiga mucaaradka ee National People's Power waxa ay sheegaysaa in maamulka cusub uusan xal u heli doonin dhibaatooyinka dalka haysta No one expects the new president. ma jiro cid ka rajaynaysa madaxweynaha cusub inuu noqdo qof sii jooga xilka waxaa jiri doona waxyaabo laga filayo in maamulku meel gaar ah uu qabto si loo yareeyo dhibaatooyinka ay haatan dadku ku dhex jiraan cadaadiska faraha badan ee dhanka nolosha iyo safafka dhaadheer ee loo galo shidaalka waad ogtahay waxaa jira waxyaabo u baahan in si hufan loo maareeyo laakiin qofna ma filayo in xal waara uu ka imaan karo nidaamkan ku meel gaarka taas awgeed waxaan u baahannahay dawlad cusub Come from this interim arrangement. For that, we do need a new government. Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ciidankeedu ay burburiyeen xalay meel Ruushka ay ku qubeen rasaas magaalada la haysto ee la yiraahdo Nova Kakhovka ee bariga ka xigta magaalada Kherson sawirro la dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qaraxyo isxigay oo halka ka dhacay heerkulka hawada ayaa sare u sii kacaya in badan oo ka mid ah dalalka Yurub iyadoo Boortaqiiska iyo Spain ay yihiin dalalka ugu daran ee uu saameeyay kooxaha dabdamiska waqooyiga iyo bartamaha Boortaqiiska ayaa la dagaalamaya dab kaymaha ka kacay 26 qof ayaa ilaa iyo iminka waxaa la sheegay inay dhinteen kadib markii roobab xoog leh oo halkuwa xilliga monsoonka ay ka da'een gobolka Sindh ee dalka Pakistan caasimada dalka ee Karachi ayaa qayb ahaan ay iyadana biyo fadhiyaan kooxaha samata bixintana waxay isticmaalayaan doomo si ay u soo badbaadiyaan dadka go'doonsan ugu dambeyntiina xeer ilaaliyaha guud ee dalka Angola ayaa waxa uu sheegay in baaritaan lagu sameeyay saarayn la sumeeyay maxkamad ku taalla magaalada Barcelona ayaa fasaxday in baaritaan la sameeyo kadib markii ay sidaa dalbatay gabar u dhalay Dos Santos oo ku andacoonaysay in la dilay aabaheed warkii dunidana waa naga intaa aad baad u mahadsantahay Faarax Lamaane halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana waa BBC dhageystayaal markana u diyaar garooba qaybaha kale ee inooga haray idaacadeena duhurnimo waa tahay duur wanaagsan markale dhageystayaal aan ku bilaabnay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Eritrea Isaias Afwerki ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Asmara ku kala saxiixday heshiis isafgarad ah heshiiska ay kala saxiixdeen labada dawladood ayaa waxa uu quseeyaa qodobo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda xiriirka shacabka diblomaasiyadda ganacsiga amniga iyo kuwa kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa goorsii horeysay dalka dib ugu soo laabtay hadaba faahfaahinta heshiiska isafgaradka ah
waxaa soo akhriyey oo haatan stuudiyaha igula sugan maxamed shiil xasan. maxamed bal noo waran. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugnaa dalkaasi Eritrea muddo 4 maalmood waxa ay kulmeen oo ay wada hadallo yeesheen madaxweynahaasi dalkaasi Eritrea Fawarki waxay isla soo qaadeen xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa ka shaqaynta danaha guud oo ay wadaagaan labada dal, isdhexgalka labada dal iyo ka shaqaynta amniga gobolka oo ay markaa isla garteen dhowr qodob oo ay ku jiraan kor u qaadidda xiriirka labadooda shacab oo ay ku jiraan qurba joogta bulshooyinka kale. laba, in la xoojiyo iskaashiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo sidii loo ilaalin lahaa loona horumarin lahaa danaha labada dal. sidoo kalena waxay isla soo qaadeen in la ballaariyo iskaashiga dhaqaale iyo bulsho iyadoo xoog la saarayo ganacsiga, maalgashiga, ilaalinta biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka iyo waxbarashada. qodobka afraad waa isla gaareen waxaa ku jira howlaha dhaqanka, farshaxanka iyo ciyaaraha iyo sidoo kale cilmiga iskaashiga dhinaca farsamada. qodobka shanaad waxaa isla gaareen waa isla saacideen horumarinta iskaashiga si loo ilaaliyo loona wanaajiyo deegaanka iyo wax ka qabashada saameynta musiibada dabiiciga ah iyo cudurrada faafa. sidoo kale waxay isla gaareen qodobka lixaad horumarinta iskaashiga difaaca iyo amniga iyo sidii loo ilaalin lahaa nabadda iyo xasiloonida iyo amniga guud ahaan geeska Afrika. iyo qodobka ugu dambeeya oo isla gaareen waa in si wadajir ah loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka wanaagsan, iskaashiga iyo dhaqaalaha isdhexgalka geeska Afrika. maxamedow maxaa kale oo dheeraad ah oo ay ku heshiyeen labada dowladood? waxyaabaha sida aadka ay la soo qaadeen waxaa ka mid ahaa in ay xoojiyaan dagaalada markaa lagula jiro kooxahan lagu tilmaamo argagixisada oo ay sheegeen labada dhinac in ay qayb ka tahay nabadda, xasiloonida iyo amniga guud ahaan geeska Afrika oo ay dan u tahay dhammaan dalalka ku yaala gobolka geeska Afrika. aad baad u mahadsan tahay. maxamed shiil xasan ayuu kaasi ahaa labada dowladood ee Soomaaliya iyo Eritrea. waa tahay markana ciyaaryahanka Ingiriiska ee 4 jeer noqday horyaalka Olimbikada Mo Farah ayaa shaaca ka qaaday in dalka Ingiriiska lagu keenay si sharci darro ah isagoo wata magaca canug kale. xidigan Olimbikada ayaa BBC-da u sheegay in loo bixiyay magaca Maxamed Farah balse magaciisa dhabta ah uu yahay Xuseen Cabdi Kaahib. warbixin arintaa ku saabsan waxaa inoo haysa Fartuun Ismaaciil. xidigan ciyaaraha Olimbikada ayaa BBC-da u sheegay in magacan Maxamed Faarax ay u bixiyeen dadkii ka soo tahriibiyay dalka Djibouti magaciisa dhabta ahna uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. waxaa Djibouti ka soo kaxaysay haweeney uusan weligii la kulmin kadibna waxa ay haweeneydaasi shaqaale uga dhigtay caruur kale sida uu sheegayo Mo Farah. orodyahanka orda masaafada dheer ayaa hore u sheegay in uu ka yimid Soomaaliya oo waalidiintiisu ay yihiin qaxooti, laakiin filim documentary ah oo ay diyaariyeen BBC-da iyo Red Bull Studio lana sii dayn doono Arbacada ayuu ku sheegay in waalidkii aanay weligood tegin UK, hooyadiis iyo 2 walaalihiis ahna ay ku nool yihiin beerta qoyskooda oo ku taala Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland. Mo Farah ayaa sheegay in qoyskiisa laga soo kaxeeyay isaga oo 9 jir ah qaab tahriib ahna loo keenay UK isaga oo shaqaale looga dhigay caruur kale sida uu sheegayo. The real story is I was born in Somalia in Abdi Kahin. sheekada saxda ah waxay tahay inaan ku dhashay Somaliland oo magacayga la oran marka laga yimaado wixii aan waqtigaas hore sheegay waalidiintay marnaba kuma aysan noolayn UK. markii aan 4 jir ahaa ayaa aabbahay lagu dilay dagaal ahli ah. waad garanaysaa qoys ahaan waan kala irdhownay, hooyaday waan kala go'nay waxaana la igu soo koriyay UK anigoo wata magaca cunug kale oo la yiraahdo Maxamed Faarax. Under the name of another child called Mohammed Farah. Mo aabihii Cabdi Kaahin waxaa lagu dilay israsaasayn xilligii dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya xilligaas oo Mo Farah uu ahaa 4 sano jir. waxa ay u sheegtay haweeneyda in Yurub loo geynayo in weheladiisa halkaasi kula noolaado, taasi oo ahayd wax farxad geliyay sida uu sheegay. markii ay yimaadeen Ingiriiska haweeneydii ayaa u kaxaysay hooygeeda ku yaalay galbeedka London isla markaana ka qaaday warqad yar oo ay ugu qornaayeen macluumaadka weheladiisa. waxa uu sheegay in hortiisa ay ku jeexjeexday warqadda oo ay qashinka ku dartay. Mo ayaa sheegaya in uu ku qasbanaa inuu qabto shaqada guriga iyo in uu hayo caruurta. waxa uu sheegay in haweeneyda ay u sheegtay haddii uu doonayo inuu arko qoyskiisa in uu aamuso oo uusan cidna la hadlin.
sannadihii ugu horreeyey qoyskiisa ma aysan u oggolaanin inuu waxbarasho aado, hase yeeshee markii uu ahaa 12 sano jir ayaa waxa uu iska qoray fasalka 7aad ee macadka Feltham Community College. maamulka macadka ayaa loo sheegay in maxamed uu yahay qaxooti ka yimid Soomaaliya. maclimadiisii hore Sarah Rennie ayaa BBC-da u sheegay uu ahaa qof aan daryeel haysan, kuna hadli jiray Ingiriis aad u yar, isla markaana uu ahaa canug ay wax badan ka maqan yihiin. waxa ay sheegaysaa in dadkii sheegtay in ay waalidiintiisa yihiin aysan marnaba soo xaadiri jirin munaasabadaha iskuulka. macallinkii Mo ee ciyaaraha jirdhiska ayaa dareemay inuu isbeddel ku yimid wiilkan yar markii uu cagta saaray waddada ciyaaraha orodada. waxa uu sheegay in luqadda keliya ee uu u muuqday inuu fahmayo ay ahayd midda ciyaaraha. Mo Faarax ayaa sheegay in ciyaaraha ay caawinayeen ayna ahayd waxa keliya uu samayn karay si uu uga baxo noloshaasina ay ahayd inuu baxo oo uu ordo. macalinka ciyaaraha iskuulka ayaa la xiriiray shaqaalaha rayidka waxauna ka caawiyey in Mo loo wareejiyo qoys kale oo Soomaali ah. sharci ahaan dowladda waxa ay kala noqon kartaa qofka dhalashadiisa haddii uu ku helay qaab khiyaano ah, balse qaar ka mid ah sharciyaqaanada ayaa sheegaya in dhibaatada ka iman karta kiiska Mo ay aad u yar tahay. Mo ayaa sheegay in uu doonayo inuu dadka la wadaago qisadiisa oo uu soo bandhigo si uu ula dagaalamo fikradda ka ganacsiga tahriibinta iyo adoonsiga sida uu hadalka u dhigay. haweenaydii Mo Faarax keentay London ayay BBC-da isku dayday in ay la xiriirto, balse ma aysan ka jawaabin dalabkeena. aad bay u mahadsantahay Fartuun Ismaaciil oo faafaynta warkaasi nala socodsiinaysay. halka aad ka dhagaysanaysaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana waxaa degan xaaladda magaalada maad ka dhacay garoonka magaaladaas kaas oo u dhaxeeyay ciidamada ilaalada badda iyo kuwa PSF-ta. iskahorimaadkaas ayaa ka dhashay kadib markii dowladda Puntland ay amartay in dib loo celiyo diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Saadiye Xaaji Samatar. dhanka kale isimada Boosaaso ayaa maanta kulan ka yeeshay arrintaas. wararkii ugu dambeeyayna waxaan goordho weydiiyey wariye Maxamed Xasan Dalo oo Boosaaso jooga. Kawsar waa mahadsantahay. shalay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay isku dhac ciidan iyadoo ciidamadu halkaa ka wada tirsan Puntland ay rasaas isweydaarsadeen oo ilaa dhowr iyo 10 qof inta la ogyahay 13 la xaqiijiyeen oo ku dhinteen, trainta ka badan ay ku dhaawacmeen. maanta xaaladda magaaladu way degan tahay, ma jiraan ciidamo is hor fadhiya oo haddeer goobo kala fadhiya oo ciidan walba wuxuu ku sugan yahay goobtiisii shaqada. shalay meeshii shaqaaqadu ay ka dhacday waxaa ku sugan ciidamadii awal hore u joogay ee garoonka ilaalin jiray oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah ciidamada ilaalada badda Puntland ee BMPF la yiraahdo. ciidamada BSF iyo halka iyagana shalay isku dhac uu ku dhex marayna waxay ku sugan yihiin goobahoodii. saakana wax saansaan ahi ma muuqato oo magaaladu sideedii caadiga ahayd ayaa loo noolyahay. iska horimaadkii shalay ka dhacay garoonka kadib garoonka duulimaadyadiisii ma istaageen mise waa socdaan? Kawsare horta iska horimaadka ciidanka dhex maray waxa uu ahaa arrin socotay muddo kooban, ma ahayn wax saacado badan socotay. haddii arrintii ay dhammaatay dhacdayna dadkii soo kala dhex galay oo waanwaanta waday ciidamadii meesha way ka kala tageen. garoonka duulimaadyadiisii waxba iskama bedelin sida qaar ka mid ah saraakiisha garoonka ay sheegeen. wixii duulimaadyada caadiga ahaa ee jadwalka diyaaradaha ahaa waxba iskama bedelin. maxamedow waxaa kalood nooga warantaa dadkii shalay ku dhintay iska horimaadka ka dhacay garoonka in la aasay iyo in kale, waana sidee xaaladda dadkii ku dhaawacmay? arrinta la xiriirta Kawsare dhaawacyada iyo dadkii wax gaareen inta badan isbitaalada ku yaala magaalada Boosaaso waxaa lagu dabiibaa isku dhac uu shalay dhex maray oo PMPF iyo BSF waa ciidamo inta badan xeryahooda iyo goobahooda ayay ku daweeyaan dadkaas dhaawacyadii oo kaleeto. laakiin dadka shacabka ee wax gaaraan ayaa inta badan la geeyaa isbitaalada. way jiraan dad dhaawacyo kooban iyo wax la xiriira qaba oo isbitaalada magaalada Boosaaso qaar ka mid ah lagu dabiibayo, laakiin arrimaha ciidanka xog sidaa usii buuran lagama hayo. inkastoo sida la xaqiijiyey inta la og yahay 10 dhimashadu dhaafayso labada dhinacba ciidamada ku dhex maray shalay ee dagaalka magaalada Boosaaso. dhanka kale isimada Boosaaso shir jaraa'id ayay ka yeesheen arrintan, maxay sheegeen? isimadu shalay isla markii falkaasi dhacay ee shir jaraa'id qabteen. arrinta iyagu waxay inta badan ku dhaliileen dowladda Puntland oo ay sheegeen in aysan ahayn gar in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku-xigeenkeeda
hayd markaa kusimaha madaxweynuhu dalka maqnaayo gudoomiyaha baarlamaanku in iyada iyo diyaarad gargaar ay waddo laga celiyo garoonka isimadu inta badan dowladda ku dhaliileen laakiin waxaa maanta iyo socday kulamo laga lahaa arrintaasi iyo sidii falkaasi dhacay ee loo dhaahin lahaa waxaa kulan ku yeeshay garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso wasiiro ka mid ah xukuumadda puntland iyo saraakiil amni iyo gudoomiyaha gobolka bari kulankoodaas oo ay arrintaas uga hadleen qaar ka mid ah wasiiradaasi waxay salaan ugu tageen isimada laakiin waxaa loo ballansan yahay sida la ii sheegay kulan weyn oo inta xukuumadda iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda boosto ka joogta ay la warkii shalay isimadu waxa ay ku dhaliileen iyagu intooda badan in dowladdu aysan arrintan tallaabadaas la qaaday gudoomiyuhu inay laabato aysan garahayn maxamed xasan dhalo aad buu u mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey magaalada boosaaso kadib iska horimaadkii shalay garoonka ka dhacay markana ganacsatada ka shaqaysata gaadiidka mootobajaajta ah ee magaalada muqdisho ayaa waxaa laga mamnuucay inay shaqaystaan wixii ka dambeeya 12 habeenimo kadib amar ka soo baxay taliska booliiska Soomaaliyeed taliyaha booliiska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay howlgallo amniga lagu ilaalinayo haddaba bajaajleyda muqdisho sidee u arkaan amarkan lagu soo rogay waa kuwan qaar ka mid ah oo BBC-da la hadlay waxaana ka mid ah ganacsadaha bismillaah axmed dawlad bandoga lagu soo rogay bajaajka 6 saac oo habeenimo ay joogsanaysaana waxaan u arkaa inay tahay tilaabo dawladdu ay ku degdegtay oo dhaqaalaha dalka iyo shaqada dhalinyarada lagu curyaaminayo aniga bajaajlaan ahay markii aragteen aan ka hadlana waxaa jirta siyaabo badan oo amniga lagu sugi karo 6 saac oo mootooyinka la istaatiya u malayn maayo inuu amni ku sugmaayo mootooyinka taargetkooda waxa weeye inay bulshada u adeegaan haddii kuwa dhac geysta ay ku jiraanna amniga waxaa lagu sugi karaa ciidamada oo amnigooda securitigooda shaqada amnigooda la daadajiyo oo degmooyinka loo daadajiyo iyagoo la dhiirigelinayo lana xoojinayo ciidamada jeegboontiyaasha jooga si heegan loo geliyo oo saacadaha ay u shaqaynayaan ba iyagu ay isku bedbedelaan oo askariga jeegboontiga jooga si u caajisin magacaygu ah maxamed cabdalla raage oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysa mooto bajaajka kolley istaajinta la istaajiyey bajaajta sina waa u saxan tahay sina uma saxna marka loo eego dhanka isu socodka habeenkii dadka qaar way soo daahaan arosmanka oo kale goobaha xafladaha ka dhacaan oo kale waa lagu soo daahaa gaadiid kale ma helo midoo kale waxaa jira dad iska fiican oo habeenkii shaqeeya gelin maalinaba isku shaqeysta oo dadaal badanaa jira iyagana culeesa ku imaan doona dadka inta badanna kolley wixii 6 habeenimo ka dambeeya way isteexdaan laakiin dadkii kale oo xilligaa shaqeysa lahaa ay xoogaa culeys ku keeni doontaa haddii laakiin amniga kama qaalisana bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdullaahi maxamuud nuur waxaa ka mid ah dhalinyarada wallaahi haddii aan ra'yigay ka dhiibto waxaan u arkaa ani ahaan ra'yigaas inuu yahay ra'yi hal go'aan oo keliya la qaatay mar walbo wax lasoo karo marka bajaajtan waxaa laga yaaba dad inay habeenkii u shaqaystaan oo ku xariiftamaan oo ilmo ka biilaan oo reer kale marka dawladdu ani ahaan ra'yaanteeda waxaa usoo jeedi lahay amnigina waa la sugi karaa habeenkiina waa la shaqaysan karaa laakiin dadaa bajet dawladdu amniga bajeta ku bixisaa lacag ku bixisaa qarasha ku bixisaa dad baa wax ku qaato dadkaas lacagta ku qaata waxaa la rabaa inay amniga sugaan magaaladan sideedaba waa amnigeeda maalmahan aad u yar xumaaday oo falal badanaa ka dhacay ciidanka boolisku haddii ugu talagalaan inay amniga sugaan way sugi karaan dhalinyaradana way shaqaysan kartaa sidaa aaminsanahay cabdishakuur aadan ibraahim marka 6 saac ma la shaqayn karo haddaan leedahay ma 6 saac ma la shaqayn karo dawladdu waa dhihi kartaa laakiin iyadoo amniga la sugi karo haddana 6 saac waa la shaqaysan karaa dadka oo xoogaa mootoleyda waa isku dhex jiraan dad xunna waa laga helaa dad fiican oo iska soo shaqo tegin waa laga helaa laakiin waxaa inta u badan qof shaqo tag ahoo wanaagsan ay u badan yihiin marka waxaan dhihi lahaa iyadoo amniga la sugaayo ayaa la shaqaysan karaaye dadka haliska dhaafa xanibaadda halaga daayo kuwaasina waxay ahaayeen ganacsatada mooto bajaajta ee muqdisho oo BBC-da la hadlayay aan Facebook eego qodobkaas dhegeystayaasha waxay ka yiraahdeen Daawud Cabdullaahi oo Kenya jooga waxa uu leeyahay booliiska Soomaaliya ee darawlada mooto bajaajta ku amray inaysan socon karin wixii saxda dhexe loo gaaro saameynteeda ay leedahay waayo mooto bajaajta dad badan oo ku nool nolol maalmeedkoodana ka soo saarta hase ahaatee mar haddii amni xumo timaado in la joojiyo waa lagama maarmaan Faadimo Xuseen Daawud waxay leedahay bajaajku wuxuu noqday burcada dadka lagu baaro ama lagu laayo graf fiican siday la tahay way mahadsan yihiin waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee Facebook ciyaarihiin haddii aan eegno gaar ahaan ayaa waxay ka ogolaatay Leeds inay soo wareejiso ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka qaranka Brazil ee
inay kula soo wareegaan heshiis gaaraya 65 milyan oo pound. Chelsea ayaa waxay u muuqataa inay kaga dambeyso Barcelona looga jiro hanashada ciyaaryahankaasi. Markana waxaa stuudiyaha BBC-da Nairobi si toos ah idinkaga soo tobinaya Fartuun Ismaaciil. Fartuun. mahadsanid Jamaal. baafinta ugu horeysa ee maanta waxay naga soo gaartay Muxubba Cabdulaahi Xasan waxay baafinaysaa san iyo Cabdi Casiis ugu dambeysay 2012. haddaba haddii ayna maqlayaan iyo Cabdi Casiis garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Muxubba Cabdulaahi Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska leedahay Helaweyn. Maryam Cabdi Salaad waxay baafinaysaa Xaawo Cabdi Salaad oo ugu wardambeysay sidoo kulana dalka Soomaaliya sanadii 2016. haddaba haddii ayna maqlayso Xaawo Cabdi Salaad ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryam Cabdi Salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Buuraamino. maxamed madkar maxamed waxa uu baafinayaa Isaaq madkar maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Dinsoor sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo Isaaq madkar maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed madkar maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. aadan yare cali waxa uu baafinaya Ibraahim Cali Xuseen oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2011. haddaba hadduu ina maqlayo Ibraahim Cali Xuseen ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo aadan yare cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. luule xasan bakaal waxa ay baafinaysaa Cabdinuur aadan cadow iyo Muriidi aadan cadow waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2011. haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdinuur aadan cadow iyo Muriidi aadan cadow ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo luule xasan bakaal iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. Khadiija Maxamed waxay baafinaysaa Cabdiya Maxamed Cali oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso Cabdiya Maxamed Cali ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Khadiija Maxamed Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. ruqiya cabdulaahi mustaf waxay baafinaysaa Cabdikariin Ibraahim Mahad iyo Fardowsi Ibraahim Mahad waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Kismaayo sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdikariin Ibraahim Mahad iyo Fardowsi Ibraahim Mahad ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo ruqiya Ibraahim Mustaf iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Helaweyn. Saciid Cabdulaahi Cismaan waxa uu baafinayaa Cabdi Mahad Cabdulaahi Cismaan oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Kenya sanadii 2000. haddaba hadduu ina maqlayo Cabdi Mahad Cabdulaahi Cismaan ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Saciid Cabdulaahi Cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. maxamuud cabdulaahi rooble waxa uu baafinayaa Cabdisalaan Cabdulaahi Rooble iyo Maxamed Cabdulaahi Rooble waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2010. haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdisalaan Cabdulaahi Rooble iyo Maxamed Cabdulaahi Rooble ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Maxamuud Cabdulaahi Rooble iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiyada ee Helaweyn. Cabdiraxmaan Axmed Cawil waxa uu baafinayaa Muuna Axmed Cawil oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolaa Somaliland sanadii 2015. haddaba haddii ayna maqlayso Muuna Axmed Cawil ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Axmed Cawil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. Khayra Cali Xuseen waxa uu baafinayaa Xusni Cali Xuseen iyo Jaamac Cali Xuseen waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan Dinsoor 7. haddaba haddii ayna maqlayaan Xusni Cali Xuseen iyo Jaamac Cali Xuseen ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Khayra Cali Xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiyada Helaweyn. Caasha Cabdi Amiin waxay baafinaysaa Cabdifataax Xasan Cabdi oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2016. haddaba hadduu ina maqlayo Cabdifataax Xasan Cabdi ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Caasha Cabdi Cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helaweyn. Maxamed Mukhtaar Maxamed waxa uu baafinayaa dadka kale ah Xasna Mukhtaar Maxamed, Maxamed Mukhtaar Maxamed iyo Fardowsi Cali Maxamed waxa uu Muqdisho sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayaan Xasna Mukhtaar Maxamed, Maxamed Mukhtaar garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Maxamed Mukhtaar Maxamed
iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiyada Helloweyn. bilow sheekh cali waxa uu baafinayaa muumin sheekh cali oo ugu dambeysay isagoo ku noolaa dalka sacuudi carabiya sanadii 2009 haddaba dadweyne maqlaya muumin sheekh cali ama jirta cid garanayso waddan warkiisa la gaarsiiyo bilow sheekh cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. Ismaan Shooriye Sheekh waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya magaalada Nairobi sanadii 2002 haddaba haddii ayna maqlayso Faadimo Cabdi Shooriye ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ismaan Shooriye Sheekh iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. luulay cabdulaahi waxay baafinaysaa khadiija cabdulaahi xirsi ugu wardambeysay iyadoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2011 haddaba haddayna maqlayso khadiija cabdulaahi xirsi ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo luulay cabdulaahi xirsi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. Farxaan Axmed Maxamed waxa uu baafinayaa Fartuun Axmed Maxamed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso Fartuun Axmed Maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxaan Axmed Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. cabdulaahi maxamed waxa uu baafinayaa xuseen maxamed isaaq oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2011 haddaba dadweyne maqlayo xuseen maxamed isaaq ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdulaahi maxamed isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. Maxamed Isaaq Cabdulle waxa uu baafinayaa Xaliimo Isaaq Cabdulle iyo Cabdulaahi Isaaq Cabdulle waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Jidda sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayaan Xaliimo Isaaq Cabdulle iyo Cabdulaahi Isaaq Cabdulle ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Maxamed Isaaq Cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. cabdinaasir cali bulaale waxa uu baafinayaa dahabo cali bulaale oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2012 haddaba haddayna maqlayso dahabo cali bulaale ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdinaasir cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. luul cabdiraxmaan cali dan aadan cismaan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo xasan aadan cismaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo luul cabdiraxmaan cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. runay ibraahim xaaji waxay baafinaysaa cabdi ibraahim xaaji oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Kenya sanadii 2000 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi xaamid ibraahim xaaji ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo runay ibraahim xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. Cabdikariin Cabdiraxmaan Cilmi waxa uu baafinayaa Cabdiraxmaan Jaamac Cali Koronto waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo Cabdiraxmaan Jaamac Cali Koronto ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdikariin Cabdiraxmaan Cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. maxamed mukhtaar mayo waxa uu baafinayaa siyaad mukhtaar mayo iyo xaliimo xasan axmed oo ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2012 haddaba haddayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed mukhtaar mayo iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. cabdiweli xasan cali waxa uu baafinayaa Cabdicasiis cabdiweli xasan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo Cabdicasiis cabdiweli xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdiweli xasan cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. mukhtaar cabdi iyo xabiiba mukhtaar cabdi ugu wardambeysay oo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2011 haddaba haddayna maqlayaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdirashiid mukhtaar cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. ciise fanax cabdulaahi waxa uu baafinayaa fanax cabdulaahi maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo fanax cabdulaahi maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ciise fanax cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. baafinta ugu dambeysay maantana waxay naga soo gaartay cabdi cali cabdulaahi waxa uu baafinayaa samsam cabdulaahi cabdi zahro cabdulaahi cabdi ugu wardambeysay oo ku noolaa dalka Kenya sanadii 2013 haddaba haddayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdi cali cabdulaahi iska baafinta bisha cas ee ku leedahay Helloweyn. baafintiina waa naga intaa idaacaddii duhurnimo waa naga intaa waa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdi aniyo kulankeena xiga 5 galabnimo
inta ka horeysa dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo